waxaa jiray saxaabi la yidhaahdo zaahir binu alxaraam nin reer miyiya buu ahaa waa ashjaciya qabiilada khatafaan la yidhahdo ka mid ah waxaa nin baadiya markuu ka yimaado nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay yidhahdaan markuu u yimaado had iyo goor ama turfuu sheegi jiray turfadu waa wax nebiga farax geliya oo uu ka warramo hadyadna wuu keeni jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam uu baadiya uga keeno waxaanuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka uu ninkaasi baadiya ka yimaadee magaalada yimaado hadhow markuu anbabaxayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu anbabixin jiray wixii uu magaalada kaga baxayo ayuu siin jiray markaa si awgeed buu nebigu wuxuu lahaa ina zaahiran baadiyatuna wanaxnu xaadiruuh zaahir waa reer miyiga iyaga annaguna magaalo jooggiisii baanu nahy yacni isna waa ninka baadiye noo jooga dhaqanku wuxuu iska ahaan jiray dadka baadiyo hadiyadday keenaan subag iyo caano iyo xoolo iyo wixii la mid ah hadhow markay magaalada ka baxayaanna dhar iyo kaba iyo wixii la mida in la siiyo maalin maalma ka miduu yimi zaahir muuqaalkiisa marka la eego waxaa la yidhaahdaa nin foolxun buu ahaa dabeetana magaaladuu yimi isagoo suuqii wax lagu kala iibsanaya joogo oo wax gadaya iibinaya ayuu nebigu xagga dambe kaga yimi calayhi salaatu wasalaam dabeetana isagoo aan arkayn buu dhabarka kaga yimi oo saa u qabtay ma arka zaahir ciddan dhabarka ka timi ee qabatay man haada arsilnii buu yidhi war waa kuma isii daa buu leeyahy kadibna markuu jalleecay wuxuu arkay inuu nebi maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuu isku nabay nebigu markaa intuu saa u qabtaybu wuxuu leeyahay war yaa iga iibsanaya buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam man yashtari hada alcabdi buu nebigu yidhi war addoonkan yaa iga gadanaya buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam isagoo la kaftamaya addoonkan yaa iga gadanaya zaahir baa markaa hadlayo wuxuu leey yaa rasuula allahi idan wallahi tajidunii kaasida ilaahay baan ku dhaartay ilaahay rasuulkiisiiyo haddaad igadda buu yidhi kaasidku yacni waxa weeyaan waan kugu fadhiisanaya maxaa tidhahdaan tijaarada markay kaa socon weydo suuq loo waayo aniga cidinay gadan maysa buu leeyahy ninkayga zaahir ah cidi kaa gadan maysa ilaahay rasuulkiisiiyo waa igu baaraysaa ama waa igu fadhiisanaysaa ama ma layga kaa gadanaya buu leeyahy nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam lakin cinda allahi lasta bikaasid ama anta cinda allahi qaal xadiidku shamaa'il almuxamadiya buu ku yaallaa waana xadiis saxiixa say culammadu sheegeen wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay agtiisa mid baariyaya ama mid aan gadmaynin kama tihid buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam hadday bini aadamku muuqaalkaaga u arkaan inaad gadmaynin lasta bikaasidin cinda allahi buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam idan quruxdu iyo jamaalka iyo muuqaalkan sare alle agtiisa waxa qiimaha kule maaha saynu u kala qurux badanna ilaahay uguma kala dhowin saynu u kala cadnahay uguma kala dhowin ilaahay agtiisa wax kalaa qiimo ka leh sida ogeed baa xadiidkii imaamu muslim uu warinayay wuxuu nebigu leeyahy ruba ashcaha madfuucin bilabwaab low aqsama cala allahi laa bara wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ruba litaqliil aw litakhiir ruba ashcaha la arkee mid basaasaysan timihiisa iyo wixiisu aanay feedhnayn ama shanlaysnayn oo basaasaysan oo madfuucin bilabwaab buu nebigu yidhi albaabada aan laga furin yacni waa miskiin ama waa kan la yidhaahdo aan ahayn dadka loo hashhashleeye albaabka loo furo aan ahayn laakiin haddana nebi moxamed muxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam low aqsama cala allahi la abara hadduu ilaahay ku dhaarto ilaahay wuu u rumaynaya hadduu yidhaha wallaahi saasay noqonaysaa sidii uu u dhaartay baa ilaahay u rumaynaya yani nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam markaa waxaa idinku wax ku qiimaynaysaan ee dadka ku qadarinaysaan inaanu ahayn alle agtiisa wax lagu qadarinaya si awgeed midaydan idinku albaabka ka furaynin oo muuqaalkiisa sare aanu ahayn muuqaal dadku ay soo dhoweeyaan
ayaa haddana ilaahay agtiisa wuxuu ka gaadhsiisay maqaamka ah hadduu alle ku dhaarto in ilaahay subxaanahu wa tacaala dhaartiisa uu rumaynayo